بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. والله قيمها بدن كسر دوادر داجين. maxay dadka qaar u jecel yihiin midabka casaanka ah halka ay kuwa kalena door bidaan midabka cadaanka ah. Weligaa ma isweydiisay micnaha ay sameynayso inaad xiisayso midab gaar ah? Waxa xaqiiqo ah in midabka uu qofku jecel yahay sababta uu ku doortay ay ka xeel dheer tahay quruxda oo kaliya. Daraasado waqtiyo badan qaatay oo ay sameeyeen khubaro ku takhasusay cilmi nafsiga midabada ayaa lagu ogaaday xiriirka midabka qofku jecel yahay uu la leeyahay shakhsiyadda qofka. Waxa kale oo ay daraasadaas ku xuseen in midabka aad jeceshahay uu ka turjumayo waaqaca aad ku jirto, dabeecadahaaga iyo habdhaqankaaga maalinlaha ah. Midabka madowga ah. Midabka madowgu wuxuu ka turjumayaa adkaysi, deganaan iyo isku filnaan. Dadka midabkan jeceli waa dad aad u fakar badan, maskaxdoodana si xeel dheer uga shaqaysiiya. Waa dad naftooda ku kooban, si fudud uga dhex muuqda dadka kale, laakiin aan waqti ku bixin inay dadka isu muujiyaan. Sidoo kale, haddaad tahay mid xiiseeya midabka madowga ah, waxa sifooyinkaaga ka mid ah inaad tahay qof mas'uuliyad qaadi kara. Ma aha dad ay dadku u bogaan ama ka helaan marka ay isku cusub yihiin ama inta aanay baran ka hor. Laakiin marka aad la macaamisho, waa dad aad jeclaysanayso inay ku jiraan noloshaada. Waa laga yaabaa waqtiyada qaar in qofka midabkan jecel uu aad u warwaro, walaac badanina uu soo food saaro, laakiin sida guud waa qof shakhsiyad adag, aadna isugu kalsoon. Midabka cadaanka ah waa midab ka turjumaya daacadnimada, nadaafadda iyo qalbi furnaanta. Sidoo kale waa mid ka turjumaya isbeddelka iyo go'aan qaadashada. Haddii aad dareento inaad tahay mid xiiso u haya midabkan, ogow inaad tahay qof daacad ah, sidoo kalena jecel isbeddelka iyo inuu mar kasta wax cusub bilaabo. Daraasaduhu waxay sidoo kale tilmaameen in dadka jecel midabka cadaanka ah ay yihiin kuwo miisaaman isla markaana wax kasta ka fiirsada. Midabka soosaliga. Dadka midabkan jeceli waa kuwo aan waaqiciyiin ahayn, khiyaaliga iyo inay wax sawirtaanna jecel, taasoo u sahasha inay si fudud u xalliyaan mashaakilka soo wajaha. Waxyaabaha kale ee ay caanka ku yihiin dadka midabkan xiiseeya waxa ka mid ah inay yihiin kuwo xiiseeya jacaylka, dadka isjecel, filimada jacaylka ah, heesaha iyo buugaagta laga qoro jacaylka. Dhanka kale waa dad markasta ka fakara mustaqbalka iyo waxyaabaha soo socda, waxayna jecel yihiin inay helaan deganaan, nabad iyo xasilooni ah. Midabka huruudda ah. Midabkan haddii aad ka doorbido midabada kale, waxaad tahay qof markasta niyad fiican, saadaal iyo rajo fiican ka qaba mustaqbalka. Midabka huruudda ah waa midabka cadceedda, wuxuuna ka turjumaa ifafaalo iyo himilo fiican. Caadooyinka kale ee ay leeyihiin dadka midabkan jeceli waxa ka mid ah inay yihiin dad danaystayaal ah xilliyada qaar, waxayna jecel yihiin ammaanta, sidoo kalena inay keligood hadlaan. Waxa dhacaysa mararka qaar adigoo dadkaas u sheekaynaya oo naftaada ka faaloonaya inay hadalka kaa soo dhex galaan, kadibna ay naftooda kaaga sheekeeyaan. Inkastoo ay yihiin dad hami sare ka leh nolosha, haddana waa dad si fudud u niyad jaba, taasoo keenta inaan qorshayaashooda wax badani uga fulin. Midabka casaanka ah wuxuu ka turjumaa midabkani inta badan dagaal iyo deganaan la'aan. Dadka midabkan jecelina waa kuwo u janjeera dhanka cadhada iyo isbedbeddelka xaaladooda. Inta badan waa kuwo aan xakamayn karin dareenkooda, waxay nolosha inta badan la jecel yihiin inay noqoto mid farxad leh. Marka ay farxad ka waayaan nolosha, waxay dareemaan cadho badan, waxayna cadhadaas kula dul dhacaan qofkii ka agdhow markaas. Midabka buluugga ah. Midabkani waa midabka dadka dunida ugu badani jecel yihiin. Dadka xiiseeya midabkani waa kuwo jecel nidaamka iyo in wax kasta noloshooda u socdaan sidii loogu talagalay. Waxay ilaaliyaan ballamahooda, waxayna hagaajiyaan oo mar kasta kala habeeyaan qolkooda. Waxay jecel yihiin jawiga degan iyo xasiloonida. Dhanka kale waa dad jecel maamulka, inkastoo aanay ugu fiicnayn sida dadka madowga jecel ugu fiican yihiin maamulka. Waxa kale oo midabkan lala xidhiidhiyaa guusha iyo ka dhabaynta hadafyada. Midabka akhtarka ah ama cagaarka ah. Midabkani waa midabka rajada iyo koritaanka, waa midowga rajada iyo habsami u socodka nolosha.
waa midab dejiya cadhada iyo diiqadda. sidaa darteed ayaad arkaysaa dadka midabkan jecel inay yihiin kuwo jecel wanaagga iyo samaynta khayrka. waxa gebi ahaanba ka maqan sifada danaysiga. waa dad lagu kalsoonaan karo isla markaana aad u sheegan karto dhib kasta oo ku haysta. haddaba nagula wadaag qaybta commentiska midabka aad jeceshahay iyo dabeecadaha laga sheegay inaad leedahay iyo in kale. mahadsanidin dhammaantiinba aad ba ugu mahadsantihiin ku xidhnaanshaha kanaalka iyo barnaamijyada ama muuqaalada aanu soo gelino. inta ka horeysa barnaamijka kan xiga waxaan idinkaga tegayaa salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.